inaad kala kursatid ma rabtaa adigoo wax kaniini ah ama cirbad isku durin si dabiici ah. dhagahaada iyo amaahi. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalaha qaaliga ah dhammaan kanaalkeyga ku xiran dhadhanka cuntada waan isalaamay. soo dhawaada ayaan ileeyahay. walaalo badan ayaan ugu soo kordhay intaa hadda maqnaa. waa mahadsantihiin, aada iyo aada u mahadsantihiin saa ii sharafteen sida aada noola socotiin ama ay iisoo raacdeen. jasaakullahu kheyr. si yaroo sahlan aada ilmahaada ku kala kursan kartid. waayo ilmaha markii la iska soo dabageeyo ma wanaagsano, adiga si jir ahaan kuguma fiicno, nafaqadii dhan ayaa kaa dhammaanaysaa, waa daciifaysaa, energy ma helaysid. sidaan u ognahayna ilmaha xitaa waqti ayuu kaaga baahan yahay, iska dhal maaha inaad tarbiyeysid, inaa ilmaha asagana waqtiga aa siisid. marka abaayo sidaa u aragtay halkan calendar ayaa ii saaran. calendarna waxaa loogu talagalay dadka 28 beri oo cyclekooda uu yahay. hadda waxaan kaaga soo qaadaya matalan abaayadan 1 bisha ayuu ku dhacay, wuxuu ka dhamaaday 5 bisha. marka waxawey most fertilitygeeda waxawey markay ugxanteeda ay soo degayso waxay ka bilaabanaysaa 11, 12 iyo 13. maalinta 14aad ayay abaayada ugxanteeda ay soo degaysaa. waxaa ka tirinaysin 14 beri. maalintuu dhiiga kugu dhaco 1 ayaa tirinaysaa ilaa iyo maalintii 14aad. 3 beri ka hor iyo 2 beri kadib. 3 beri ka hor ayaa wuxuu bilaabanayaa inaad ugxantaada ay maaragtay soo diyaar garoobeysaa. markaas oo kale waxaa jira calaamadooyin sida horaan usoo sheegay aad dareemeysid. calaamadooyinka waxaa kamid ah naasaha ka dareemeysaa inay maaragtay ku bararsan yihiin, caloosha waxaa ka dareemeysaa dibira camal ay ka dareemeysaa, makaanka afkiisa oo isbedelo ee arkaysaa. waxaa kaloo dareemeysaa jirkaada qandhadiisa ayaa maaragtaa ziyaadaysa. maaragta jirkaada waxaa ka dareemeysaa kuleel, ubacda oo ku xanuunaysa ayaa aada uga dareemeysaa. marma qaarkood dhinaca midigta ama dhinaca maaragta bidixda ayaa xanuun ayaa ka dareemeysaa. waxaa kaloo oo dareemeysa dareemaha ayaa kor u kacayaan. waxaa kaloo dareemeysaa ama dhacaan hoosta kasoo baxayso oo u eg sida ukanta xabkeeda camal ayaa hoosta ayaa ku arkaysaa. wax yaroo gacanta markaasaa u taabatid oo jijiidmanayo. markaasoo kale hadaa aragtid waa waqtigaad u baahan tahay inaad is ilaalisid. hadaa is ilaalin weydo waxaaweeye waxaad uurbaa hore ka qaadaysaa. waxaa kaloo ku ogaan kartay waxaawaye ovulation test. qalabkan waxaa loogu talagalay waqtiga ugxantaada ay soo degayso ayaa ku ogaanaysaa. waxaa laga helaa farmeeshiyaha kugu dhow ayaa tegaysaa. waxaa dhahaysaa waxaan u baahanahay ovulation test. marka guriga imaatid waa soo qaadaysaa. sida kan uurka ah markaad qaadaysid ayaad u qaadaysaa. kaadidaada ayaa dhexgelinaysaa. waxaana bilaabaysaa inaad qaadid markaad caadada ka qabaysatid 1 beri kadib ayaa horeba ka bilaabaysaa inaad ka qaadid. markaa qaadid waa wadaysaa ilaa iyo 14 beri ayaa wadaysaa. maalintaada aragtid labadaa xariiji ama ma aragtaa daciif sida hadda xariijiyaasha ay u kala sareeyaan waa aragtiin. mid wuxuu tusinaa daciif yar, mid daciif ku xigo, yacni siduu daciifka iskugu xigaan uu ma aragtaa uu usii guduudanayaa. waa sidii maalimaha ay iskugu xigaan ma aragtaa oo waqtiga ugxantaada usoo dhawaanaysid ayuu zaa-id usii guduudanayaa. marka maalin kasta iska qaadid markaa aragtid labada xariiqadood oo maaragta oo midna daciif ah midna maaragta aan daciif ahayn, markaas waxaa bilaabaysaa adiga xaajigaba inay maaragtaa inay wala kulmin ayaa bilaabaysaa. markaas isbuucaas marka waxay macnaheeda tahay waqtiga ugxantaada ay soo degaysay ayaa ku jirtaa. waqtiga ugxantaada soo degaysay ayaa ku jirtaa. marka waa inaad ilaalo gooni ah aada sameysid. marka hooyooyinka waxaan rabaa waana yar inaan siiyo. anaka hooyo haddaan nahay waxaan u baahan nahay nafsadeena inaan daryeelno. ilmaha waxaaweeye waxaa fiican in la kala dheeraysto 2 sano, 3 sano, 4 sano. weliba aniga waxaan ii sheegayaa ilmaha 4 sano ilaa maaragta 5 sano u dhaxayso aada ayay u wanaagsantahay. waxaa saa u leeyahay waxay tahay ilmihii kale ma ku imaado, ilmahan oo aqliyaystay oo wax fahansan oo iskuul aaday, dugsi aaday oo ilmihii kale fahmayo ayaa dhalaysaa oo ma aragtaa ku ciyaarsiinayo. laakiin ilmihii oo yaroo sanad jiro hadaa mid kale ka daba keento adiga ayaa ku rafaadayaa, stress ayaa kugu dhacayaa, waa isku buuqaysaa, madax ayaa ku xanuunayaa,
dhiiga ayaa kugu yaraanaya, nafaqadii ayaa kaa dhamaanaysaa, yacni adiga dhan waxaa noqonaysaa daryeel la-aan. marka waxaa fiican kow nafsadaada adiga inaad daryeeshid, adiga inaad isnafaqaysid, ilmaha inta maaragta aad gaabka u dhexaysiinaysid adiga ayaa jirkaada soo celinaysaa. hooyooyin badan oo waxaan arkay iyagoo umul ah ama cunug haystaan oo nuujinayaan, cunugii xitaa naaskii maaragta si fiican u nuujinin oo maaragta waqti siinin ayaa waxay ku dhahaysaa sideen ilmo kale ku dhalaa, ama maxay iga caawin kartaa, ama vitaminyaasha aan soo geliyo aan hooyooyinka maaragta aan weli ilmaha dhalin ama ilmaha raadinayo ama waqti badan ku qaadato inay dhalaan idhahayaan sideen u isticmaalnaa. baa iga raali noqo, ha iga xumaanin, laakiin aniga waxaabay dantaada ayaan ka fikiraa. waxaaba hooyo baa tahay, hooyo kale ma dareemi kartaa, hooyo kale la dareemi kartaa, qof kaloo dareemi kara ma laha. marka hooyo hadaa tahay waxaaweye adiga nafsadaada soo celi, adiga isdaryeel, adiga cunto nafaqaysan cun, adiga ma aragtaa waxaan ku dhahay shaxshax iska dhig. markaasaa ma aragtaa ilmo kale energy usoo yeelo, markaasaa ma aragtaa ilmaha kale xitaa waqti siin kartaa. laakiin ilmihii oo yar oo naas nuujinaysa ka waran hadaa uur qaadid, walaci waan isla garanaynaa, ilaa hooyaan kule ah anigaba, walaca aad ay u kululyahay. ilmihii waxaaweye hadana specially hadaa wadankan aan Yurubka aan joogno aad joogtid waa rafaadaysaa, wax ilmihii kaa celinaya maleh, ma fahantay, ku caawinaya malaha marka aad odaygaada ka ahayn. marka aniga abaayooyinka waxaan igula talinayaa ilmaha bal isku daya xitaa 2 sano 3 sano hadaa u dhexaysiin kartiin u dhexaysiiya, adiga choice leh, laakiin aniga tala ay iga tahay, waa tala aan walaashayda aan la talinayo. marka ilmaha kala fogeysta insha Allah si dabiici ah oo ma aragta kalandadan hadaa fahantid oona jirkaadana fahantid way kuu fududaanaysaa ilmahaada saa u kala celisid. aniga hadda ilmahayga kan ugu yar hadda wuxuu jiraa 6 sano, intaasna cirbadna ma isticmaalin, kaniinina ma laqin, kalandagan ayaan isticmaalay, waxaana dareemay jirkayga, waxaan fahmay jirkayga. marka walaashayda hadaa jirkaada fahantid way kuu fududaanaysaa, hadaa rabtid uur inaa qaatid, hadaa arabtid ilmo inaa iska celisid aad ay kugu fududaanaysaa. marka muhiimada waxaa waaye jirkaada adiga inaa aqrisatid, inaa adiga jirkaadana fahantid muhiim ayay kuu tahay. intaas ayaa rabaa walaalahayga qaaliga maanta inaan igu soo gabagabeeyo. insha Allah videoyaasha share noo dhaha, subscribe na ha iloobin inaa saaratin, gambaleelka meesha ma aragta gambaleelka yarna taabta, markaan videoyaasha soo geliyo waxaad noqonaysaa videoyaasha aan soo geliyo qofka koowaad uu soo dhaco haddii uu kuu furan yahay. walaalaha qaaliga ah waxaan leeyahay intaas video ku xigo. Assalaamu calaykum waraxmatullaah wabarakaatu.